السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa casharadan yaryarka ah oo sida ugu dhaqsaha badan wax la isugu dhufto ama wax la isugu qaybiyo sirta ku jirto maskaxda wax lagu qaybiyo ayaan rabnaa ama maskaxda wax la isugu dhufto inaad barataan si aad mararka qaarkood ay ku anfacdo mar walba calculator lama ordi ka dhidi marka waa sir xoogaaya oo baan isdaba dhigi doonaa marka casharada noocaana la soco ma hadarsi gaara laakiin waa mental work waa shaqada rabnaa maskaxda inay fududaato oo durba u nambarad ka shaqaysa xisaabta hadda waxaan rabnaa casharkan afarta ama dhibic afar ama afartan wax ka bilowda in lagu dhufto tiro kasta sidee laga yeelaya arrintaas kow waxaan isticmaal tusaalaha koobaad konton iyo shan baa waxaan ku yidhi afar ku dhufo maxaad samaynaysaa laba tallaabo keliya aad qaadaysaa labada tallaabo waxaan ugu yeerinaa double laban laab oo laban laab maxaan ka wadnaa tilaabada koowaad waxaa laban laabaysaa konton iyo shantiyo haddaa laban laabtid dee waa 110 qof kasta waa iska garanayaa taas haddana laban laab 110 waa laban laabi ka dhaa 220 shakadu waa xiranta intaas ayay ku ekaata laban laab haddana laban laab tusaale kale aan aragno 325 waa dee baan waxaan ku afar ku dhufo dhib male ma fog markiiba kor baan ka sheegaya seebaan leeyahay waa laban laabayaa dhabalkii baan isticmaalayaa haddaan laban laabo 325 waa 650 haddana 650 laban laab 650 isku dar waa 1300 waa xiranta waa dhamaatay qalinka intaan la qaadin ayaa dhamayn ka dhaa example saddexaad markaan waxaan ku yiri eberran ku soo daray 220 waxaad ku dhufataa 40 number weyn buu eegyahay laakiin waa number fudud sidii baad yeelaysaa ignore double reinsert waxaad iloobaysaa eberta waa laban laabaysaa haddana laban laabaysaa markaas dib maxaan ka wadaa marka ugu horeysa iska ilow eberada 22ka ba laban laab waa 44 haddana laban laab 44 waa 88 labadii eberad ka tagtay tan iyo taasa ku dar 88 eber ku daba qabo waa 8800 waad ku ceshan kadhaa haddii aad micnaha aad fahmi weyda halkaan laakiin waa sahlan tahay tusaale kale aan ku darno afraad tusaalaha afraad wuxuu leeyahay markaan dhibic baan soo gelinay 36 baa waxaa ku dhufanaysaa eber dhibic afar ma fakarayo sidii oo kale waxba isku dhufan maayo anigu waxaan samaynayaa dhibicda waa inkirayaa maxaan samaynayaa 36dii baan laban laabayaa marka ugu horeysa waxaan ignore garaynayaa decimalko waxaan laban laabayaa 36dii haddaan laban laabo waa 72 haddana waa laban laabaya 72dii waa shay ka sahlan 144 Soomaalidu lacagta aad bay u xisaabsataa marka dee waxaan uma wadaahaysaa baan u malaynaya 144 haye tilaabo saddexaad baan ku daraynaa maxay tahay dhibicdii aynu ka tagno halkaa ku jirteen dib u soo gelinaynaa usee baynu ugu soo gelinaynaa hal tira xagga ka xigtay marka hal tiraynu xagga ka xijinaynaa 14 bay noqonaysaa haye halkaa waa caddahay soo maaha haye kan kale tusaale kale aan ku darno kan shanaad markaan dhibic baan meel walba gelinay number qaab daran buu eegyahay continue kow dhibic 3 eber dhibic 4 ku dhufo marka lagu yiraahdo maskaxda waxaa la rabaa second inaad ku samayso ku samaynaysaa waxaa leedahay okay dhibcaha iyo dambeeyay barorta numberka muxuu ahaa 513 iyo laban laab waa 1026 waa naqaanaa 326 shanta boqolna waa 500 haddana iyo laban laab waa 252 soo maaha haye xoolaha ku fiican 252 haye labada dhibcood dib u geli oo maxay laba tira xagga iga xigtay midna afar ba xagga xigta hal tiro midna saddex ba xagga xigta hal tiro labada isku darkooda laba tira xagga la raanay ka marto marka halkaas ay gashay 20.52 ayay noqotay tusaalihii ugu dambeeyaynu samaynayna cajal wad ku ceshan doontaa hadaa u baahatid aad iyo aad u casharkaa runtii qiimi u leeyahay markaad aad u fahamtid baad garan doontaa kan lixaad mid sahlan qaalan eber buu wataa qaarna dhibic buu wataa dhib male ebertii dhibicdaba waa inkiraya oo see yeelaya 132 soo qaadanayaayo waa laban laabaya 264 haddana waa laban laabaya 528 soo maaha ha nasiib wanaag markaan maxaa dhacaya ma taqaanaan dhibicdii afar iyo ebertii waa isgoosanayaan dhibicdii ebertii
waa isgoosanayaan marka xisaabtu intaas iska ahaanaysaa 528 ma ogtahay haddaad eber keliya wadato eberta keliyaad ku dari lahayd hadday dhibicda wadatana dhibic baad soo gelin lahayd hadda labadooda mid kaluu saaray 528 halkaa waa xirantahay ila tahay marka hadda waxaa inoo haray inaad exercise samaysid adigu maskaxeed oo 1 minute laba shuruudood wixii lagu soo baro double kayd ama lama laabki iyo isticmaal ku cesho cajalka hadaadan aadan ku gelin midda labaad qalin ka jawaabta kaliya ku qori kadhaa maskaxda ka samaynaysa qalin kor ha u qaadin teeda kale hal daqiiqa la rabaa inaad ku samaysid intaanan exercise ka haddaan soo wadaa hal daqiiqaan kuu qaban doonaa intaan exercise kuu keenina xusuusnow inaad channelkayga aad subscribe garaysidoo subscribe aad tidhaahdid waxna kaa dhimayso channelkan waxba u taraysaa oo u soo baxayaa marar badan si fudud kuu soo baxayaa halkaas ayaan rabaa inaan joojiyo hadda iyo waxaa idin kala baxayaa adiga halkii daqiiqo diyaar ma tahay war joojiso qalinkii waraaqda diyaarso ee gabarii wiilkaa tahayba haye ready set go waayahay halkaa casharka ku xigo oo isku qayb asna isku dhufashada shanta ah asagana la deg insha allahu tacaala salaam